السلام عليكم. دابينكا دينتا شينها maxaa ku dhacay dalalka Uganda, Kenya, Djibouti ay macquul tahay inay arrinkan la kulanto. Midaan waa Uganda bariga Afrika, dalka sideedaad ee ugu dadka badan qaaradda. 45 milyan oo qof ayaa ku nool, bad gaarayo 240,000 oo kiiloomitir square. Ma ahan bad aad u weyn markii loo fiiriyo 45 milyan oo qof. dal xiran oo aan bad lahayn tabcan waan wada ognahay arrinkan ka cabanayana dhibaatooyin dhaqaale kala duwan. agagaarka harada Victoria ee dalka Uganda waxaa ku taala magaalo lagu magacaabo Entebbe ama Entebbe qaabab kala duwan ayaa loogu dhawaaqaa. magaaladan dad badan kuma noola, laakiin waxaa ku yaala garoonka kaliya ee dalka dhan lagu tilmaami karo garoon caalami ah. waana ujeedka aan u soo qaadanay ama aan uga hadlayna mawduucina maanta. laakiin wax yar hal daqiiqo oo waqtigaada ka mid ah mahadcelin iyo bishaarayn. waxaan u mahadcelinayaa walaalihii ku tabarucay taakulayntii abaaraha. ku bishaaraysta ajir weyn waa la gaarsiiyey dhammaan taakulayntii aad soo dhibteen. waxaa la gaarsiiyey dadkii loogu talagalay, dadkii aad ugu soo talagasheen ayay gaartay. waxay soo gaaray muuqaal dadkii la gaarsiiyey ayagoo idiin ducaynayo. marka adinkoo faraxsan ku bishaaraysta ajir weyn, dadkaas waad ka farxiseen. dhinaca bishaarada waxaan idinkugu bishaaraynaa in alxamdulilah roobabka ay bilowdeen, dadkuna ay abaarta ka sii baxayaan, ugu yaraan dhulka in uu qoyay, biyaha xareedana ay meel walba waran yihiin. haddaba aan u soo laabanno mawduuceenna. 2015 bangiga Export Import Bank of China ee raacsan xukuumadda Shiinaha ayaa dalka Uganda deemiyey lacag ah 207 milyan oo dollar si loogu horumariyo garoonka Entebbe. muddada lacagta lagu bixinayana in ay ahaato 20 sano. waxaa laga yaabaa inaad isleedahay sawirka Neymar maxaa ka galay mawduuceena. kaliya waxaan ka wadaa 2017 naadiga PSG Faransiiska dalka Qatar laga leeyahay ayaa kula soo wareegay halkan laacib lacag ah 245 milyan oo dollar. naadi kubadeed hal naadi ayaa kula soo wareegay laacib lacag intaas la eg, halka dawlad 45 milyan oo qof ay ku nool yihiin ay waxaasoo dhibaataya saxriir u marayso in ay hesho lacag ka yar midda laacibkaas lagu soo gaday. dabcan waa xaalka adduunka. haddaba akhyaaray maalmihii yara ee la soo dhaafay waxaa soo baxay war caalamka dhan aad uga hadlayay oo ah in dalka Uganda uu ku fashilmay gudida deynta Shiinaha. Shiinuhuna uu garoonka qaatay in dalka Uganda garoonkiisa u waayay halkii garoon ee caalamiga ah u waayay. marka koobaad warkan sax ma ahan markii loo fiiriyo, si kale markii loo fiiriyana waa sax. sidoo kale heshiiska ayaa dhigayay in Uganda ay haysato 7 sano, in 7 sano uu Shiinuhu u ogol yahay in ay dib u dhacdo bixinta deynta. haddii ay dawladda Uganda awoodi weyda bixinta deynta in ay haysato fursad 7 sano oo ay ayuuta kula gasho wadamada deriska la kadibna ay lacagta ku guddo. haddaba 2015 7 sano kama soo wareeganin, taasoo ka dhigan in aan aslan la gaarin waqtigii loo qabtay ama waqtigii Shiinuhu uu u qabsan lahaa inay deynta gudi weyday. laakiin waxaa jira qodob muhiim ah oo mudan in la sheego, heshiiskana ka mid ah qodobkaasoo Shiinaha xaq u siinayo in uu garoonka qaato ama xadidayo awoodda Uganda ka dal ahaan hay-adaha duulimaadka madaniga ah in wax walba ay Shiinaha u hoos fariistaan, wax walba oo garoonka ku saabsan. ayuha saada, xukuumadda Yoweri Museveni ee dalka gacanta ku hayso waxay dareentay in xaalku adag yahay, macquulna tahay in dawladdaas dhan 45 milyan ay ku nool yihiin, dhul ahaan qaniga ah, laakiin nidaamka ka jira oo ka dhigay mid faqiira ay awoodi karin in lacag 200 iyo wax yar oo milyan oo dollar ah ay bixin weydo. waxayna Uganda ka dalbatay Shiinaha in qodobada heshiiska wax laga bedelo, waana arrinka keenay in warkan uu soo baxo, caalamka dhan uu ka hadlo. waxaad xasuusataa mahmaahda ah qiiq ma jiro dab la'aan. caalamku warbaahinta kala duwan arrinkan kama ayna hadli lahayn haddii wax ayna ka jirin. wargeyska caanka ee Bloomberg ayaa qoray cinwaankan Uganda ayaa Shiinaha ka dalbanayso in wax laga bedelo qodobada heshiiska amaahda. laakiin wargeyskan wuxuu leeyahay waa arrinka la xiriiro in hay-adda duulimaadka rayidka Uganda ay u baahnaanaysa mar walba sida uu heshiisku leeyahay in ay la xiriirto bangiga Shiinaha mar walba oo ay rabto inay tallaabo qaado, in ay garoonka xafiisa ka furtaan, inay waxyaabo sameeyaan, waxaa qasab ah inay Shiinaha la xiriiraan. waana arrinka keenay sida wargeyskan misdaaqiyad ilaa heer leh dhaqaalaha ka hadla uu leeyahay. waa arrinka keenay in Ugandayska ay dalbadaan in heshiiska wax laga bedelo. Shiinayska iyo Ugandayska labadaba way beeniyeen warka la wareegada Shiinaha garoonka. waana sax, Shiinuhu garoonku lamuuna wareegin, laakiin waxaa la hubaa in mustaqbalka haddii ay xukuumadda Museveni bixin weydo deyntaas ay Shiinaha ka qaadatay garoonka magaalada Entebbe uu Shiinuhu qaadan doono. waxaa jira erey cusub oo lagu magacaabo Chinese debt trap, dabinka deynta Shiinaha. inkastoo galbeedku uu adeegsado wax Afrikaanka iyo wadamada saboolka lagu cabsiyo, haddana waxbaa ka jiro. waxaa jira wadamo badan oo ku dhacay dabinka Shiinaha sida Sri Lanka, dawlad aanan aad uga fogeyn juqraafi ahaan qaaradda Afrika, la wadaagtana baahida iyo madowga maqaarka dadkeeda.
waanu imaan doonaa dabcan qodobka la xiriiro takada Mombasa Kenya laakiin aan sii wadno qodobkan Sri Lanka la xiriiro iyo ku dhicidda dabinka Shiinaha Sri Lanka waa mid ka mid ah wadamada ay la degtay ama ku dhacay dabinka deynta Shiinaha Shiinuhu wuxuu u dhisay dalkan wadooyin dhismayaal waaweyn dhismo hoosaadyo kala duwan laakiin Sri Lanka way awoodi weyday bixinta malaayiinta deynta Shiinaha arrinkeenay sida ay warbixinadu leeyihiin in Shiinuhu uu xataa la wareego xaafadaha iyo wadooyinka qaar in dhismayaal waaweyn xukuumadda Shiinaha ay la wareegtay laakiin wax walba ilaa heer macquul ayay ahaayeen ka hor inta ayna dowladda Sri Lanka arrinkan samaynin midaan waa takada ugu weyn uguna muhiimsan dalka Sri Lanka laguna magacaabo Hambanaan Tota magaca ku dhawaaqiisa ahmiyaddaas halkan nooma lahan waana halbowle muhiim ah haddaba ku fashilanka gudidda deynta Shiinaha ayaa keenay in 70% milkinta takada iyo weliba dhulka ku hareeraysan in uu Shiinuhu la wareego weliba arrinku sidaas maan kaliya 99 sano soo socdo takada ugu muhiimsan dalkan Sri Lanka iyo dhulka ku hareeraysan waxaa lahaan doona Shiinaha haddaba aanu imaano dalka Kenya 2014 dowladda Kenya ayaa Shiinaha ka qaadatay deyn dhan 3.8 bilyan oo dollar 3 bilyan iyo 800 milyan oo dollar si loogu fuliyo mashruuc khatareen isku xiro caasimadda Nairobi iyo magaalo xeebeedka Mombasa waana mashruucii ugu weyn ee Kenya laga fuliyo laga soo bilaabay 63 markii Ingiriiska ka xarowday khadkan tareen wadadan tareenka waxaa dhisay shirkadda China Road and Bridge Corporation waxaad sii ogaataa isugeynta deynta Shiinaha yani uu dalkan Kenya ku leeyahay in ay dhan tahay 6 bilyan oo dollar mashruuca khadka tareenka muddadii loogu talagalay ka hor ayaa la dhameeyay Kenyaatu aad ay u farxeen markii hore laakiin wax xirsug sanadkii ugu horeeyay mashruucu wuxuu xaqiijiyay khasaare gaaray 9 milyan oo dollar 3 sano markii ka soo wareegatay dhisidda khadkaas tareenka khasaaruhu wuxuu ahaa 200 milyan oo dollar Kenya طبعا rajo weyn ayay ka lahayd mashruucan in dhinaca horumarinta uu qayb weyn ka geysto laakiin xaalku sidii loo maleynay ma una noqonin khasaarahaas weyn iyo deyntaas balaayiinta ayaa keentay in Uhuru Kenyatta uu qol isku soo xiro kadibna uu hoos u ooyo si ay wadamada dariska u maqal Kenya waxay ku qasbanaatay in takadeedii ugu muhiimsaneed uguna weyn طبعا takada Mombasa waliba waxa lagu tilmaamay takadaha ugu weyn bariga Afrika oo dhan in ay miis ka saarto hadii ay bixin weydo deynta in Shiinuhu uu maamuli doono takada ilaa hadda Kenya ayaa gacanta ku haysa Shiinaha wali lama wareegin laakiin miiskay saaranta oo ah marhuun hadii aan awoodi weyno fadal Ustaad Shiina ku soo dhawow takada Mombasa adiga iskale arrinka deynta wuxuu u egyahay sidii qof bangi guri u dhiso kale laakiin bixin waaye deynta bangiga kadibna bangiga uu qofkan guriga ka bixiyay qofkaana uu is arkay asagoo banaanka yaala sida ka dhacday dalka Mareykanka 2008 dhaqaale burburkii طبعا intanada badan aan wada maqalnay ama aan wada joognay aslan malaayiin Amerikaan ah ayaa hal mar is arkay ayagoo wadooyinka taagan kadib markii ay awoodi waayeen inay kirada bixiyaan guryahaas ay bunuugta dhiseen kadibna banaanka loo saaray sidoo kale dalka Pakistan ayaa kamid ah wadamada ku qasban in ay takad ku wareejiso Shiinaha kadib markuu dalkan Pakistan ku fashilmay celinta ama gudidda deynta Shiinaha ee aadka u badan Shiinuhu 62 bilyan oo dollar ayuu deymay dalka Pakistan muddooyin kala duwan laakiin Pakistan celinta deynta way ku adkaatay waana arrinka keenay in mid ka mid ah takadaha ugu muhiimsan gawaadir dalka Pakistan gobolka Baluchistan kuna teedsan badda Carabta in Shiinaha la siiyo maamuli doonana 40 sano soo socdo waxaa jira wadamo diiday in ay qaataan deynta Shiinaha una arkay gumayso cusub iyo dabin 2019 ra'iisul wasaaraha Malaysia Mahathir Mohamad ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay diiday 3 mashaariic waaweyn oo uu Shiinuhu fulin lahaa asagoo yiri ma doonin isticmaar cusub sidoo kale Sierra Leone Afrika ayaa sidoo kale laashay mashruuc maalgelin يعني كإيمان dhinaca Shiinaha lacag gaarayso ama lacagta Shiinuhu uu miiska soo saaray ahayd 400 milyan oo dollar si loo dhiso garoon diyaaradeed laakiin Sierra Leone waxay dhaheen ma yeeli karno raali ahow 2006 jamhuuriyadda Tajikistan Aasiyada dhexe kana mid ahayd jamhuuriyadihii muslimka midowgii Sofiyeedka waxay ku qasbanaatay Tajikistan in bad gaarayo 158 kilomitir dhul buuraley ah bad ahaan ka weyn dalal sida dalka Bahrain ay ku wareejiso Shiinaha si uu u beero kadib markii dalkan Tajikistan uu ku fashilmay sidoo kale gudidda deyntaas uu Shiinuhu ku harqiyay Tajikistan waa wadamada ugu saboolsan Aasiyada dhexe laguna harqiyay ama u carab laalaadiyay deynta Shiinaha laakiin nasiib xumo ku dhacay dabin
ودad مسلمين طبعا وحن أرجينينا برواقي بشوش مر والبا sidoo kale dowlad jasiiradeedka Maldives ayaa ku qasbanaatay in mid ka mid ah jasiiradaheeda ay muddo 50 sano ka kiraysa Shiinaha wuxuu rabana uu ka sameeyo qayb dhulkayga ka mid ah qaado diintii baan gudi waayay jamhuuriyadda Djibouti ayaa ka mid ah dowladaha ku dhacay dabinka deynta Shiinaha deyn aad u badan ayuu ku leeyahay Shiinuhu dalka Djibouti warbixino dheer oo faahfaahintooda aan sii gali karin ayaa leh waxba macquul ah sidoo kale Shiinuhu inuu takada Djibouti dalbado waxaana xusid mudan in ciidan Shiinaysa ee dalka Djibouti joogaan runtii arrinkan dabinka deynta Shiinaha ma ahan mid ciyaar ah ama mid ka badbadin ah waa xaqiiqo cad oo aan aragno Shiinuhu waa dal ka labaad ee tabcan ugu dhaqaalaha badan caalamka balaayiin lacag ayuu haystaa sidaas darteed in uu wadan deyn ku harqiyo kadibna uu soo shi dhulka dalkaas uu qaato waxba uma arko mowduucan intaanu ku egyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته